رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. hadda guurka masnuunka ah qof walba oo milkiye uhba jasadiyan ama maaliyan macnaa u milkiye dhanka ay guurka awood u yeesho macnaa guurka jasadiyan maaliyan naftiisuna u hamuun qabto guurka aana uga cabsanaynin laakiin inuu ku dhaco xaaraan waana tiro badan oo dhalinyarada ka mid ah xaaladda hadda haysato qofkaas guurka xaqiisu wuxuu yahay sunna wuxuu ku helayaa ajir haddii uu sameeyo qof walba oo milkiya uhba ahaan jasadiyan iyo maaliyan naftiisuna u hamuun qabto inuu guursado laakiin aan maxaa la naftiisa uga cabsanaynin inuu xaaraan ku dhaco qofka guurka xaqiisu wuxuu ku yahay masnuun sunno laakiin waxa jirta walaal noqdo hadda la sheego oo laga wada hadlo culimada kitaabadooda waxay ka hadlaan qadiyad ay dhahaan maxaa la dhahay yaa fadli badan guurka ama in loo tafarruqo cibaadada ra'yiga waa maxay kee fadli badan inaad masaajidka ku baaqi noqotid adigoo masaajidka ka fadhiyo kitaabkaaga akhrisanayo qiblada u jeedo quraankaaga akhrisanayo tukanayo cibaadaysanayo kitaabkaaga ku furan yahay i'tikaaf ku jiro ee quraan inta akhrista macaanaysanayo maalintii sooman habeenkii soo jeeday salaad tukanayo cibaadaysanayo inaad cibaadadaas u tafarruqdid iyo inaad guursatid culimada badankoodu waxay dhaheen guurka ayaa fadli badan fiiriya ajirkaas aadka u faraha badan ee u sugnaada qofka guursaday sidii inuu habeenkii oo dhan qiyaam leyl ku jiro sidii inuu maalintii oo dhan sooman yahay sidii inuu mutafarriq lil cibaada yahay oo masaajidkiisa ku jiro laakiin waxaa fadli badan guurka kadibna waxaa la barbar dhigay arrimo kaleeto kee fadli badan in cilmi loo tafarruqo iyo in la guursado qaarkood culimadu waxay dhaheen tafarruqul cilmi ayaa fadli badan qaarkoodna waxay dhaheen guurka fadli badan maxaa yeelay guurku naftigiisu wuu fara badan yahay maxaa laayay inaad dad anfacdid adiga anfacaayo dad kale anfacaayo cilmigana sidoo kaleeto asna wuu fara badan yahay dad badanaad caawinaysaa markaa wax baratid laakiin cibaadada waa mid keliya ku sugan laakiin guurku adiga ayaa iscaawinayo gabar ayaad caawinaysaa waxaad caawinaysaa maxaa laayay caruurtaadii qoyskaaga ehelkaaga waxaa laga yaabaa inaad muslimiinta u keentid wiil noqdo cumar bin khadaab cusub ama salaaxudiin alayuubi cusub guurku wuxuu sunno u yahay qofka milkiye uhbada naftiisuna u hamuun qabto aana naftiisa uga cabsanaynin zinada hadda goormuu guurku noqdaa xaaraan goormaysan kuu banaanayn inaad guursatid goormaa laga xaarimayaa gabadhu inay guursato goormuu dambaabayaa wiilku haddii uu guursado culimmadu waxay dhahaan qofkii hubsada hadalkan ila fiirsada qofkii hubsada inuu dhibaataynayo xaaskiisa jasadiyan ha noqoto ama maaliyan laftirkeedaba ha noqoto qof kasta oo hubsado inuu dhibaataynayo xaaskiisa qofkaas guurka xaqiisa wuxuu ku yahay xaaraan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa cibaadii innii xaramtu adulma calaykum wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu ha isdulminina ilaahay subxana wa tacaala dulmiga ugu xarimay qofkii hubsada inuu dhibaataynayo gabadhan u guursada tusaalahaanoo kale wiilkan hadduu jiran yahay uu qabo cudur jasadiyan oo u dhowaan karin gabadhan asagana og inuu cudurkaas qabo gabadha uu u dhowaan karin gabadhi asagii ehelkiisina ay ku qasbaan inuu guursado ay dhahaan waxaa rabnaa inaad guursatid waxaa rabnaa inaan ku aragno adoo cariis ah oo guursanayo wiilkaas waxaa habboon inuu dhaho taas ma banaano inaad dulmiyo gabar igu tashanayso oo filanaysa inaan u noqon doono zawj berina aana xaqeeda jasadiyadeed ama jinsiyadeed aana awood u lahayn inaad guto inuu dhahaa la rabaa wiilkaas
qof walba hubsado inuu dhibaateynayo xaaskaas qofkii haddana xitaa jasadiyan hubsado maaliyan haddana qofkii hubsado inuu dhibaateynayo gabadhaas waxaa habboon inuu hadda ka tago waana xaaraan inuu guursado waxaa arkaysaa mararka qaar qof aan awood u lahayn inuu biilo gabadhan oo maaliyad ahaan gabadhan biilo haddana guursanayo waxaa arkaysaa mararka qaar kuwa ka xirayo dadka gabadhii iyo maxaa lahaye caruurteedii jikadii iyo maxaa lahaye firiishkii meesha badarka ku jiray waa dhibaateynaysaa beri markaa baxday gabadhan maxay cunaysaa qofkii hubsada in aan maxaa lahaye maaliyan uu dhibaateynayo gabadhaas oon badar iyo quud sii karin tiisiibu dhib ku tahay qofkaas xaaraan ayuu ka yahay guurka mararka qaar waxaa adkaysaa wiil dhalinyaro ah oo jaamacad dhigto oo aabihiis lacag yar siiyo asbuucii maxaa lahaye lacag yar la siiyo bilkaadan yakfihi halistaaba inuu ku filnaato asaga lacagtaas aabihiisna haddana awoodin rabinna inuu ku kaalmeeyo inuu guursado ayaa wuxuu ku leeyahay waxaa bartay gabar jaamacadda ila dhigto waxaa rabaa inuu guursado ayib say u guursanaysaa waa guursatay maxaa ku nafaqaynaysaa haddaa guursatay xaggee ku noolaanaysaa gabadhaas xaggeed ka quudinaysaa aawa nafaqadii xaad siinaysaa aawa madkhuulkaaga wax kusoo gala ma jiraan gabadhaas waa dhibaateynaysaa maxaa yeelay sidaas markay tahay guurka xaqaa wuxuu kaa yahay xaaraan haddii aad hubsatid in aad dhibaateynaysid gabadhaas qof walboo hubsado inuu dhibaateynayo zawjadiisa amaba zawjada gabadha laftirkeeda hadday hubsatay inay dhibaateynayso wiilka gabadhu haddaysan nin u baahnayn cudur nafeed ee ayadii haayo darteed jir ahaaneedkeeda haayo kadibna lasoo doonto waxaa habboon inay ku dhahdo hooyadeed hooyo aniga ma rabo guur mana awoodo guur sababtana saas iyo saas waayo ma rabo inaan dhibaateeyo wiil ku dhibaateeyo guurkayga aniga xukunkanna waa xukunka saddexaad ee guurka zawaajka xaaraamka ah xukunka afraad oo uguna dambeeyo guurka makruuha ah qofkii ka cabsada in uu dhibaateeyo xaaskiisa haddii aad hubtid waa xaaraan laakiin haddii aad ka cabsatid guurku waa makruuh markaas qofkii ka cabsada inuu dhibaateeyo maxaa lahaye jasadiyan oo maaliyan jir ahaaneed ama maal ahaanaadba qofkaas guurku makruuh ayuu ka yahay qofkaas guurku wuxuu ku yahay shakhsiyan makruuh kadibna walaalayaal culummada waxay dhaheen markii doonashada lagu gabar hore loo doonto kaleeto haddaad doorat xaaraan ama makruuhay dhahaanba qofkii sameeyana dembi ayay ku tahay guurkiisa haddii dariiqo saxa ay u guursado makruuh guurkiisu waa makruuh alkhidba cala alkhidba maxaa laga wadaa wiil ayaa imaanaya tusaale ahaan oo kaleeto gabar ayuu ka doonanayaa maxaa lahaye gabar qoys gabadhu way wanaagsan tahay way qurxoon tahay nasab ay leedahay maasha allah wuxuu ugu sheekeynayaa sheekadii saaxiibkiisii wuxuu leeyahay waxaa dalbaday aniga heblaayo ayaan doontay waxaan ballan isla galnay inaan guursado aniga ayagana waxaa noo dhexeeya sheeko iyo wada hadal noo socdo saaxiibkiis ayaa waxa uu baxayaa asaga kadib haddana wuxuu doonanayaa isla gabadhii uu saaxiibkiis doontay haddii arrintaas dhacdo oo waa ehelkii isla waafaqaan arrinkaas wiilkaas labaad oo guursado gabadha guurkaas waa makruuh waxaa dhacdo nawaadir muqiira oo ah carabta ninka ugu caqli badan ka mid ah oo wuxuu yidhi qof caqligiisa igama guulaysan iyo ra'yigiisii wiil dhallinyaraa ma ogiyo oo aan kala tashtay gabar aan guurso rabay gabadhu aad bay u qurux badneed way wanaagsanayd maasha allah ay ahayd kadibna wuxuu ugu yidhi ayuhal amiir gabadhan kuma wanaagsana maxaa sababay waxaa arkay uu yidhi wiilkii wuxuu yidhi waxaa arkay uu yidhi gabadhaas wiil shuminaayo nin shuminaayo ayaa arkay kadib wuxuu yidhi ayaama kadib gabadha kuma qalanto uu yidhi waa ka tagay kadib waxaa arkay uu yidhi gabadhii arooskeedii yahay arooskii markaa tagay waxaa arkay uu yidhi wiilku inuu yahay wiilkii maxaa la dhahaye shalay ugu dhahay gabadhaas kuma qalanto waa u tagay uu yidhi muqiira adi maada igu dhihin waxaa arkay nin shuminayo gabadhan haa waa kugu dhahay waxaa arkay aabbaheed oo shuminayo oo dhunkanayo muqiir wuxuu yidhi qof iigama guulaysan caqligiisa iyo rajaaxadiisa ilaa wiilkaas dabcan taas ma bannaano waana xaaraan guurkaasna waa makruuh sidaasoo kaleeto dhammaadka walaalayaal waxaa makruuh ah guurka quruurka ah sawaajul quruurka waxaa ku jiro been abuur in laga been abuur tusaaleahaan oo kale gabar jirto maxaa lahaa 30 sano inaad ahayd 20 sano jirtaa zawaajul quruur been abuur ayaad sheegtay gabadhan ma jirto 20 waxaa laga yaabaa mararka qaar inuu wiil soo wato gaari kala kacsanoo waaweynka ah soo baakinto si uu ciddaas ugu jiro inuu wiil gaarigaas wato lacag leh uu yahay mararka qaar gabar ayaad ka doonanaysaa maxaa lahaye ehelkeeda waxaa leedahay gabadhiina maxay baadataa waxaa lagu leeyahay doctoro waxaa arkaysaa ayaama kadib inay gabadhan doctor ahaynba walaalayaal
barnaamijkeenan maanta waxaan ku soo gabagabayn doonaa halkaas waxaan uga hadlaynay xukmu zawaaj waxaanu sheegnay in guurku uu leeyahay xukumo kala duwan mararka qaar uu noqdo mafruud mararka qaar uu noqdo makruuh mararka qaar uu noqdo masnuun mararka qaarna uu noqdo maxruum halkaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa xalaqadeennii maanta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh